maanta dagaal baa socday bukaan hadduu yimaado wax lagu shaqeeya ma leh madaxweyne ku-xigeenka noo yimi waa u sheegnay inaan wax lagu shaqeeyo aysan oolin anigu waxba ma hayo bukaanna ma lagalama xisaabtamayo intii hore deymaha kaliya hala bixiyo xitaa wala bixin waaye sablaayga hala soo gado hala keeno waa la keeni waaye af Soomaalina kuma shaqeyn karo dadka oo dhan waa wada jaban yihiin tiibka waa lacag baaga dhiigga waa lacag sheebaarka anaga ciidan naga ma caawiso wasaaradna ma caawiso dawlad kale ma caawiso hay'ad ma caawiso isbitaalka soo iibsada dadka lacagta laga qaada dib lagu soo iibiyaa horta aad ugu faraxsanahay ina maanta halkan joogtaan anagu team yar baa idinka arki jirno aad dadka u caawin jiro xagga dharka iyo xagga cunada ka caawin jiray istaalka waxa soo galay 75 qof oo bukaan baa soo galay 6 mar baa la diray 8 mar baa la diray intii kale isbitaalkaas wax looga qabtay hadda waxa ku haray 26 qof intii kale discharge baa lagu sameeyay hal qof oo shaafad noo keenay ama gloves noo keenay maanan arag salawada socotaana bukaanku waxa loogu shaqeeyaa waa qof dhaawac ah oo dhiiga waxa kow lagu qabto waxa weeye inuu qofku gloves xirto shaafadna haysto wixii wax lagu taliyana haysto isbitaalka maanta aan idin la joogo hal xabo ma haysto shaafadna ma haysto waxna ma toli karo bukaanna ma kabi karo bukaanna ma qali karo wixii aanan awoodin waa soo gadanayaan laakiin anaga maanta saxada taagana wasaaradda caafimaadka og tahay gudiyada noo yimaada waa og yihiin hadda wasaaradda caafimaadka ka imaanay waana ka soo weynay goos iyo maxay ahayd iyo kidka wax lagu talo waa ka soo helnay qayb silingayaal waa ka soo helnay iyo qaybo faleembooyinka u baahneen oo markaa naga go'naa laakiin iyada laftirkeeda xuma yaalaan marka waxaan rabaa inaan degmada aan weydiiyo waxa weeye yaa magaa isbitaalka lagu talo maxaa lagu talo galay wasaaradda caafimaadka nagu dayseen iyo dawladda mise idinkuna gaar baa degmo ahaan isku xilqaanteen isbitaalkan wax uga qabanaysaa qaliinka halka qof ee lafta laga gelinayo bir uu og yahay waa idila joogaa inaadeerkeen $350 way halkii xab haddii 2 birood la gelinayo waa $700 waay soo xagee laga keenayaa birti waa qaali kidka wax lagu tolaayo waa qaali xanuun baabihi waa qaali dadkan waxa dhahdaan waa masaakiin dhamaantood ma wada gadan karaan waxa beesha joogo oo dhan kuwa aan iska bedeli karin macawista kuwaan waxaan la socon hooyana la socon aabana la socon waxa ugu darnaa midka reerkooda dhan dhinteen kaligiis ahaaba ugu darnaa dadka masaakiinta ah ee inoo jooga oo la doonayo oo walaalaheen oo dagaalka ku soo dhaawacmay maxaa degmo ahaan ay haysaa oo doonaysa isbitaalka inay ku qabto wasaaradda caafimaadka anaga u geysanay codsigeennii dhiboo dhanna way og tahay wasiirku waa og yahay agaasimuhu waa og yahay wax qof aanan ogeynna ma jirto anigana hadda ma aamusayo degmo ahaan waa qaylinaya anigu waxba ma hayo bukaanna ma lagalama xisaabtamayo intii hore deymaha kaliya hala bixiyo xitaa wala bixin waaye sablaayga hala soo gado hala keeno waa la keeni waaye af Soomaalina kuma shaqeyn karo dadka oo dhan waa wada jaban yihiin tiibka waa lacag baaga dhiigga waa lacag sheebaarka anaga ciidan naga ma caawiso wasaaradna ma caawiso dawlad kale ma caawiso hay'ad ma caawiso isbitaalka soo iibsada dadka lacagta laga qaada dib lagu soo iibiyaa dhakhtarka lafaha waa sidoo kale kan qaliinka waa sidoo kale emergency waa sidoo kale isbitaalka waxa free ka ah oo kaliya meesha hooyada ku dhasho laguna qalo iyo ilmaha nafaqa darrada ah meesha lagu qooday inta kale waa lacag sababtoo la soo iibiyaa marka waxaan idinka codsanaynaa asadegma ahaan ina isbitaalka hoos u soo eegtaan baahidiisa waa badan tahay ma la cover gareyn karo laakiin daruuriga waxyaalaha daruuriga ah in la soo gadi karo lagu tacaali karo wax kasta waa dhici karaan hadda hadduu dagaal dilaaco maanta dagaal baa socday bukaan hadduu yimaado wax lagu shaqeeya ma leh madaxweyne ku-xigeenka noo yimi waa u sheegnay inaan wax lagu shaqeeyo aysan oolin dadka oo dhan cunno iyo dhar bay raadinayaan cunno iyo dhar waa run waa sax waa wax wanaagsan waa loo baahan yahay bukaan hayaha iyo bukaanka bagaajada in lagaga biyo laakiin bukaanka muxuu ku badbaadayaa horta wuxuu ku badbaadi lahaa waa in la helaa markaas waxa la raadin karaa muqtaaqood wuxuu ku badbaadaya ma jirto anigu waxa hay waa dhamaadeen saaseen iiga istaagan tahay soo dhawaada
inta inoo joogto bukaanada waa fiican yihiin MCH-da oo dhan baa u soo wareegay oo supply-ga uga soo aruurinay say xoogaa loo cover gareeyo xoogaaga kalena u soo iibsadaan marka still waa fiicannahay inta inoo joogtana waa wanaagsan tahay hal patient un baa dartan dhaawaciisa xoogaa recovery sameyn waayay sababtoo ah isagana sokor buu qabaa waxay qaadanaysaa time dheer inuu biskoodo haddii xataa aan helno oo diyaarad la helo waa saaraynaa wax dhiba malaha haddii la waayana awal baa loo shaqeynaya waa loo shaqeynayaa marka bukaanadeedan oo dhan saas weeye marka idinkaana maamula idinkaa degmo ahaanna matala madaxda kale waynaga saraysaa ma aadi karno degmadii baan nahay madaxda degmada waxaa laydinka rabaa inaad koro u socotaan ama hoos u socotaan meesha dhaqaajisaan saa ku dhaqaajin lahayd idinkaa laydinka rabaa ani waxaa tiraadaan waxaa kaa maqan waa idin dhiibaya idinkaa laydinka rabaa saa u raadin lahaydeen